maxaad ka ogtahay boobka uu maayarku ka wada degmada Boorama maxaad sa kala socotaa shaqada dhabta ah ee maayarka ma is leedahay maayar baa is hortaagi kara xukun maxkamad sare haddaad ogeyd mas'uul ka shaqeeya ilaalinta nabadda afar jeeble muxuu jecel yahay talo sharciga iyo xaq bulshada muxuu u yaqaan afar jeeble أما حرف كستوه وحكي بدل وقصة ما ينيو وحلا تهرى عيوات السوركا وحكا ليو نزلوبنا هاي شرع كستا أما طلب كستا أول طابنا يا واحد لقد ديجنا يا واد السوركا وحصلت كوا يا واد السوركا haddii uu meeyar Saleebaan idhi sharci wax shaqeeyo distoorkana aan ku dhaqanno xagu ka keenay awood oo maxkamad qaran isku hortaagay isagu waxa taa cadeyn u ah meeyar Saleebaan dad badan oo madaxa isku galiyay oo maxkamad isla galay dibadina la kala xukumay Saleebaan waa ninka sida bareerka u hor joogsada xukunka maxkamadda sare bal haday la arka qoraalkan idin muuqday waa xukun maxkamadda qaranka Soomaaliland oo ah maxkamadda ugu dambaysa ee wax xukunta ay soo saartay afar jeeble isaga oo muujinaya inuu ka awood badan yahay maxkamadda qaranka waxa uu soo saaray warqad uu ku cadeynayo inuu dhammaan bacirka u laalay xukunkii maxkamadda sare taasi waxay cadeynaysaa inuu afar jeeble shuruucda iyo sharciyada dawladnimo aan waxba ka aqoon oo uu macallin ku yahay soo loo dhaco hantida ummadda muwaadinku xuquuqda uu leeyahay haddii aynaan garanayn dawladda ku xadgudbayna qofka shacbiga inuu fahmo waxa xaq loogu leeyahay iyo wuxuu isagu xaq u leeyahay xuquuqda qof kasta leeyahay haddii uu Saleebaan idhi waa in la ilaaliyaa bulshadan uu meeyarka u yahay ee uu xaqoodii dhaco ama ka xayiro miyaanu ogeynay xaq ku leeyihiin qofka mas'uulka ah wuxuu xaq u leeyahay inuu ku dacwooyo waxa laga soo dheertay waxa lagu dacweynayaa waa dastuurka qofka mas'uulkii qofka shicibka ee wax ka sheegay inuu dacweeyo haddii uu xaq u yeeshay waa su'aale qofka shicibkii mas'uulka ku gafay inuu dacweeyana miyaanay xaq ahayn haddii se laga dacwado Saleebaan muxuu ku jawaabayaa waa qabto xidha taasi miyaanay cadeyn u ahayn inuu meeyar Saleebaan aqoon ba u lahayn dastuurka uu ka sheekaynayo afar jeeble waa aafa qaran sababtoo ah ciidankii qaranka Soomaaliland ee loogu talagalay inay sugaan ammaanka iyo nabadgelyada gobolka afar jeeble wuxuu u adeegsadaa danihiisa gaarka si uu uga horgeeyo cid kasta oo uu rabo inuu dhul ka boobo taasi waxay keentay in ciidankii qarankuna ka mid noqdaan dhul boobka ka socda degmada Boorama ciidanka idin muuqday waa ciidanka bilayska qaranka Soomaaliland qaybteeda Boorama meesha ay joogaan waa joogo in ay leeyihiin Macaatayo Xuseen oo kamid ah beerta Caatayo Xuseen odayo guddi ah oo dhexgalay afar jeeble ayaa reer Caatayo Xuseen ayaa si wada jira waxay u tageen jogooyinkaas kadib afar jeeble wuxuu hoos ula hadlay ciidanka bilayska hadda bal ila daawo muuqaalka yara kooban dhulboobkana kuma koobna beerta reer Caatayo ee waxa uu si baahsan uga socdaa guud ahaan degmada Boorama haddii aan laga soo gaarin afar jeeble degmada Boorama waxay dadweynaha reer Awdal qarka u saarayeen inuu qof kasta sharciga gacantiisa ku qaato haddii uu afar jeeble ilbaxnimo mooday beenta ribada dhulboobka iyo dhaca hantida ummadda inta ku taageersanina ay ku difaacaan qolonimo waxaad ogaataan inta uu xaqooda boobayaana waxay noqon doonaan qolo sida sharciga ku cad beertan waxa la bixiyay 1960kii waxa sida sharciga waafaqsan dawladda hoose looga naqshadeeyay ama looga sameeyay Tombalaanka 2003dii waqtiga oo uu meeyar ahaa Cabdiraxmaan Cumar Daahir arkiifyo dawladda hoosena uu yaala sharciga dhamaystiran afar jeeble waxa uu u bareeray inuu shaarka dawladnimo ku dhaco jogooyinka reer Caatayo Xuseen Geelle afar jeeble waa dagaal oogay ka shaqeeya isku dirka kala geynta iyo istagaalida dad walaalo ah
afar jeeble waa cunsuri sababtoo ah marka la weydiiyo ee lagu yidhaahdo beertan maxaad ummadii lahayd uga xayirtay waxa uu ku jawaabaa beertu kuma taalla bakiye waxay ku taallaa xoogga dabadhadhiye afar jeeble maayar afar jeeble waa nin aan ku xidhna qaranka Somaliland isla markaana aan xiriir badan la lahayn ummadda uu meeyarka u yahay waa keligii tashade haddana taladiisu ma bixisa way xidhaa afar jeeble waa meeyarka degmada Boorama kama shaqeeyo shaqadii loo igmaday ee ahayd kobcinta dhaqaalaha iyo ballaarinta degmada ee wuxuu maalin iyo habeen hor jooga xafiiska wasiirka arrimaha gudaha iyo guriga madaxweyne ku-xigeenka iyo aqalka madaxtooyada isaga oo ka ilaalinaya dadka uu dulmiyay inay ku dacwoodaan iyo xildhibaanadii doortay oo uu shaqadoodii tunka ku sito inay dawladda la kulmaan intaasoo qodob marka la isku geeyo soo lama oran karo waa meeyar haya shaqaan shaqadiisii ahayn sida aynu wada ognahay abwaanka aqooyahanka qoraaga sheekha iyo dhammaanba inta lagu sheego aragti dheeridu waxa ay u xil saaran yihiin inay u hadlaan dulmanayaasha sidaas darteed waxa aan si xiriira idinla socodsiin doonaa dhibaatooyinka uu ku hayo afar jeeble degmada Boorama iyo shakhsiyaadka uu isku hadlaynayo waxaan idinkaga tagayaa gabaygan oo ku xiriirsanaan doona taxanaheenan dhibka waa afar jeeble ku haya degmada Boorama haddii aad isdiidaan min raga damacna kuu keeno goortuu darjiidhoo yidhaah miidho darangayso mas-uulnimada loo doortay buu dib u xasuustaaye doqonkaama toosoo gumbay daris wadaagaane daandaansigiisii ninkaa dagalka aafeeyey inaan yara dul saaraan rabaa diirad xoog badane dadkii uu mas-uulka u ahaa meeyar didinaya ushana dabka u geliyayoo docadocaynaya haddii laga dacwoodana ay jirin dawlad qabanaysi danguud wuxuu ku sheegaba inaa diiday lagu waabsho waa jawaab damiir ruux lihiba soo diyaarsadaye degmadan xilkeedii alluhu daliga kuu saaray danyartaad ku miidhaa ku tidhi kaa dacwaan nahaye dul ahaan magaalooyinkan daris wadaagayno degmadaad ka reebtaa ku tidhi kaa dacwaan ahaye darajada ilaahay baxshee eebba kula doonay daacad lagu ilaashay rabtaa iyo dulqaadkeedii damanaha intaa laga dadee shacabkii loo dooray duulaan dib uga qaadaybaa cidi daweynayne dood kale waxay tidhi bulshadan aad u daranyowday meeyarkani dugaagoobayow kaa dacwaan nahaye dadkan aad kadeediya dalkaba daa'inkaa qabin